jiray inta uu noolaa 1993 waxaa la xasuustaa in ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya xilligaa joogay dagaal ba'an ay la galeen generaalkii sidoo kale kooxdii uu watay muxuu ku soo bilowday ogaantaada dagaalkaasi walaa dagaalkaani sidiisaba horta Mareykanku xoog ku soo gala dalkan xoog ku soo galana waa la soo dhaweeyay markii la soo dhaweeyay ka bacdi wax military la yiraahdo lagu soo galay habeenkii waxay duqeeyeen raadi Muqdisho ayagoo raadi Muqdisho duqeynaya ayay niman Bakistaaniina yiraahdeen cunto qaybiya raadi Muqdisho caaw duqeeya dadkii careysan oo ciil ka qaba dadkii markaa laay waa shacab ya ciidan hubaysan maahin adigu waa saasi ku bilaabatay bilawgeena madaneena all mareyd how iyo waxay kula kulantay airportkan iyo nuclear ogli waxay saxiixtay qodob la yiraahdo 837 soo qabasho ciidid waana ka duushay saasi waa gartay magaalada generaalka waxaa la sheegaa in marba meel uu kaga dhuumanaya isaga qarinaya ciidamada Mareykanka mararka qaar waxaa la sheegaa in iyaga xitaa uu dhexmarayay marka arrimahaasi maxaa ka jira walaa ninka horta nin military oo dhisan oo ahay hab infantry oo ka dhisnay hab sahan oo ka dhisnay hab siyaasad oo ka dhisnay nin dhisan oo ahay okay ninkani Allah u naxariisto go'shaala iyo qamiis iyo koofi qof dabalaaban hoosta ku qaadan jiray ulna waa qaadan jiray niman Bakistaaniin oo Saybiyaano isbaaro u taalo oo subax ku yimid ani marka jiiradan ka soo baxay waa istaajiyeen iga furuuray General Aidid intee balaqani ka kala carreen waa ka soo gudubay ha waxa weeye taxi 124 ha markaasna dagaalkii waa soo dagaalku ha waxaa jiray dhacdo aad loo tabiyo oo ahayd in guri looga shakisnaa ee ku yaala inta u dhaxaysa Banaadir iyo sidoo kale Digfeer la duqeeyay oo dad nabadoonna iyo dad asigu u dhawaa halkaasi lagu laayay gurigan gabeehan buu burburay maxaad xogtaas nooga sheegi kartaa 74 qofood ku dhimatay abshir kaahiya kamid ahay Cabdiqaadir Dhololaa kamid ahay Qaliif Cadaawo Cali kamid ahay waxa kamid ahay ninka la yiraahdo engineer William nin la jiro wakaalada biyaha Islaayna kamid ahay waxa kamid ahay nin la jiray SSNM gudoomiye oo la dhigi jiray in xaaji nin waxa la dhigi jiray Cabdi wuxuu la dhashay Cabdi Sheekh Yusuf Cabdi Sheekh Yusuf la jiray dadku hebel ma lahayn rag badan ku dhaawacmay ku dhintay wariye afgooya ku dhintay 74 qofood ay ahaayeen shirkaas maalintii hore how wuxuu la shiray odayaal waxay ku heshiiyeen in ciidii isaga bax wadanka xogta sidan ku hayo على حاصل شركي شر دبا جوغي ووركيس حان ka yeelna ahay la tashi ah rag wada shirkaas iyo rag qabaardmooga intaba meesha way isugu yimideen okay asaga intuu yimid oo isaga baxa meesha waa la igu dilaa janarka dhaxaya yaa la igu dilnay iskooska oo tarbuuka markuu soo dhaafana duqeynta bilaabatay marka aniga aan khusuusan warqadan isaga soo iloobay taleex guri aan deganaay meeshaan ka soo baxay markaan soo dhaafay haanta ceelka wasaaradda caafimaadka aan soo maray jaamacadda medicine aan soo maray ayaa duqeyntu bilaabatay laakiin markii hore adiga waxaad ku jirtay dadka meesha ka wardoonayay meeshana xarunteena dhabarka dambe ku haysay waa iska dhawaayay marka shirka uma socon
xarunta irideed aan la wareegay marka xarunta geli rabay warqadda ugu soo dhacday waa soo laabtay waa qadar ilaahay marka intaas ahayd waxaa kaloo dheeraay inta mas-uuliyad aan soo arkay intaan ka warqabo waxa u dheeraay calaamad u dheerayaa jirta laba calaamo u dheerayaa jirta kow horta karfantow hindiya kasoo goostay waa lagu aasay boorsiisa ku jirta labo asoon salaado u dhowrayna weligii ma bixin marka dagaalkaasi aan dhameeyo calaamada kale waxay eeday saakay maantoo kale kula ballamaa beri saacaduu kula ballamay saacaddaa markii la gaaro in banaanka lagugu celinaa iyo wax kale ku qabsadeen iyo kale saacaddii marka la gaaro fag oo banaanka soo banaanka soo istaagi jira si qofkaas in la celinaa iyo inuu soo da u kala ogaado marka dagaalkaasi waxaa ku dhintay 74 qofood oo hal meel ah weli dagaalkii muqdisho uu ka socday xilligaasi sidee ugu dambeyntii caydiid uu kaga itaal roonaaday intaa ka warqabtay ciidamadii iyaguna ku qasabtay in dalka isaga baxaan caydiid shacbiyada u heelisay shacbiyada u haystay markii dambe shacbiyada laga kala furi doonaa ogley hadlay wuxuu yiri aniga caydiid iyo macal hogaamiyaasha qabqablayaasha kulligood baalashan ka rifayna keligoodna waa bartay ilmaameedsanayna dagaalkaas markii waa kii ugu dambeeyo lagu afjaray wuxuu ahaa kii oo bakaaro 3 October 3 October dagaalkaas wuxuu bilowday 9 saac oo galabnimo subaxii 3 saac oo dabowna uu dhamaaday hadda markii diyaaraduhu soo dhaceen caydiid shir jaraa'id uu qabtay dagaalkii xabad joojin ku dhawaaqay adduunyadina xabad joojintu waa aqbashay saas ku dhamaaday dagaalkaas laakiin waxaa la sheegaa in Mareykanka haddii awoodiisa uu isticmaali lahaa inaysan waqti badan qaadan lahayn wallahi awoodiisa Mareykan wax lama harin tii Allah ka weyneed ummadan ummad islaam oo laga gal daray waa awood inuu isticmaalo ilaahay baa ka hortaagan bay moogta koomka ilaahay iska laasoo malaha waa adoon kibri waa marka dhimashadii Allah naxariistay generaalka kadib xaggee ku dambeysay ururkii dhisnaa ee SN wallahi isbahaysigii dhisnaay dadkii waa joogaan dagaalkii markuu dhammaaday odayaala loo yeeray odayaashii waxaa la yiri dhaqan ah oo 4 may ahayn 4 ah waxaa la yiri nin walba miisaan saa loo hordhigay ama 10 kun loo hordhigay nin walba waxaa yiri hal nin ma ahayn 3 kale lacagta jeebkay gashtay 10 kun oo dollar okay markii waxaa la yiri caydiid waa idin maalgelinayna caydiid iyo wixii taageerayaashiisa in xamar laga safeeyaan rabnaa yaa dhahay marka ogley waxaa dhahaya iyo haw arigaas weli ma sheegin xogaalanahay kabacdi nimankii waxay yireen adugu waa cudurro daarteen Allah u naxariisto waaskii xawaad la istaagay wuxuu yiri lacagta ma qaadan asiga wuxuu yiri dhageysta aniga maanta haddaan Washington inta tagay ogley iyo haw turjubaankii waa joogaa waa mar ugu dhintay ninka turjubaanka ah haddii la soo qabto la yiraa suurto gele maya waa caydiid wadanka iyo dadka uu leeyahay annaguna dagaal dadkeena ma gelinayno mana ku horkacayno